dunida iyo waayaheeda isbedbedelka badan nin waayo arag ah oo muddo dheer u soo joogay ayaa laga hayaa waxa uu waayuhu i baray in aan dhegaysto qof kasta aragtidiisa waajibna aanan u arag inaan ku qanco waxa uu waayuhu i baray in ilmada ama oohintu nafta raaxa geliso nafsadana ka fududayso culayska laakiin aan iska jiro in ilmadayda ay aragto cid iin ama cillad ka dhigi kartaa waxa uu waayuhu i baray in aanan ku talax tagin farxadda iyo murugada midna waayo duruufaha adduun waxa ay isu beddelaan sida hadhka qofna ma oga waxa ku soo maqan waxa uu waayuhu i baray in haddii caqligu hadli waayo ay buuq iyo muran kaalintiisa buuxiyaan waxa uu waayuhu i baray in aan qaado mas'uuliyadda culays kasta oo ay leedahay waase haddii ay tahay mid doonistayda iyo xorriyaddayda ku soconaysa waxa uu waayuhu i baray in sharafta iyo karaamadu ay tahay in aan noqdo sida xidigta waqtigeeda iyo cimrigeeda oo dhan u hurtaa in ay dadka u iftiinto iyada oo aan mahadsanid iyo abaal midna kaga doonayn waxa uu waayuhu i baray in awoodda kor loogu kaco iyo tan hoos loogu dhacaaba ay carabka ku hoos aasan tahay